oohintu waa wax dabiici ah oo qofku ku muujiyo dareenkiisa sida farxadda, murugada, xanuunka iyo wixii la mid ah. laakiin waxaa jira dumar si fudud iskaga ooya. haddaba iyo golow inaan kula wadaago 10 waxyaabood oo sabab u ah oohintaada fudud. 1. Emotions ama dareeno badan oo isbiirsaday. marka ay jiraan dareeno badan ama emotions dhex socda maskaxdaada kuwaasoo ay sababeen waxyaabo badan, waxay u badan tahay inaad xakameyn karin oohintaada. 2. haddii aad waqti badan la qaadatay dad emotional ah oo in badan ooya ama aad la damqatay, waxay u badan tahay in adigana ku saameeyaan. 3. haddii ay jiraan waxyaabo emotional ah oo waqti badan aad ku bixiso sida daawashada aflaanta murugada badan, heesaha, munaasabadaha iyo wixii la mid ah, jirkaaga wuxuu seefgareynayaa xasuusta iyo xaaladaasi, taasoo adigana kaa yeeli karaysa inaad si fudud ku oyso. 4. haddii aad tahay qof ku jira xaalad qanaaco la'aan ah xagga naftaada iyo noloshaada, taasoo keenaysa inaad mar walba ka walwasho, waxay sababi karaysaa inaad noqoto qof si fudud ku ooya. 5. depressionka. haddii aad la dhibaatoonayso xaalad niyad-jab joogto ah adigoo dareemaya murugo iyo dareen ah inaad waxba qabsan karayn, iyaduna waxay sababaysaa inaad si fudud ku oyso. 6. anxiety. haddii uu jiro waxyaabo mar kasta aad ka walaacdo ama kaa xanaajinaya ama kuu diidaya inaad howlahaaga diiradda saarto, waxay iyaduna keeni karaysaa inaad si fudud ku oyso. 7. boogo carruurnimadaada ku soo gaaray. gabdhaha inta badan yaraantooda la soo kulmay boogo sida xadgudub jireed, dayacaad ama u soo joogay xaalado argagax leh, waxay u badan tahay inay noqdaan kuwa si fudud ku ooya. 8. shakhsiyadda. qof waliba wuxuu leeyahay shakhsiyad u gaar ah. haddii aad tahay qof highly sensitive ah ama si fudud ugu walaaca ama ugu falceliya xaaladaha, waxay u badan tahay inaad noqoto gabar aan ilmadeeda xakameyn karin. 9. isbedelada ku dhaca hormoonada. oohinta fudud ee dumarka ayaa waxaa kaloo sababa xilliyada u dhacayo isbedelada hormoonka, sida waqtiyada caadadu ku dhacayso ama kadib, xilliga ay umalayso ama marka ay caadada waqti dheer ka soo daahdo. isbedelka kadiska ah ee ku imaanaya hormooniska ayaa sababi karaya oohinta badan. 10. muujin dareen. dumarka badanaa waa makhluuq u samaysan inay wax badan hadlaan, wax badanna ogaadaan, sidoo kalena wax badan muujiyaan dareenkooda marka loo eego ragga. sidaa daraaddeed dumarka qaar ayaa oohintu waxay u tahay hab ay ku muujiyaan dareenkooda sida farxadda iyo murugada iyo wixii la mid ah. haddaba u kuurgal qodobadan oo ogow midka sida dhabta ah u sababa ilmadaada. haddii oohintaadu tahay mid xad ka bax ah, waxaa habboon inaad la tashato dhakhtar psychologist ama therapist ah, sidoo kale inaad iska ilaaliso wax kasta oo sababaya ilmadaada. daryeelka naftaada iyo meditationka ayaa kaalin weyn ka qaata xakameynta oohintaada badan. sidoo kale inaad biyo diiran ku qubaysato marka aad tahay emotional ama dareenadaadu kacsan yihiin ayaa si weyn kuga caawin karaya. waxaan filayaa inaad wax badan ogaatay. nagula wadaag fikirkaaga qaybta commentiga. ha iloobin inaad subscribe tiraahdo kanaalkan, sidoo kalena aad gambaleelka furato si aad ula socoto mawduuca xiga. mahadsanid.